السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرتا وسلامتين وشانل كبر أما برا عشر كلمات وحو كسابسن يهي سيدا سوفتوير لوغا ترترو كمبيوتركا marka daawasho wacan ila soco waxaan aadayaa waxaan rabaa tusaale ahaan in aan computerkayga aan ka tirtiro softwarekan la yiraahdo magaciisa Audacity beta marka dad waxay isticmaalaan markay software tirtirayaan sida waxay u tirtiraan sawirada loo tiro ama musiga ama documenti dad waxay sameeyaan right click intay dhahaan ay kortagaan delete marka sidaan wax looma tirtiro software sidaan looma tirtiro delete shortcut ku dhawaad tiraysaa shaashada desktop kale ka tirtimaayna programka wili PC gaaga waa ku jira marka saas waxaan sameyn karnaa sidaan wax looma tiro software waxaa u tiri kartaa waxaa imaanaysaa start menu hadda anigoo inta ka tiraan ku tusnaa programkan meesha isku jiro start menu settings control panel aan click siinayaa waan yara sugayaa intii uu kasoo kacayo halkan ayay ku keenaysaa kadib halkan waxaa ku qoran add or remove macnaheedu waxa waaye ku dar ama ka tir programka computer dhan intuu ku jiro right click open aa leedahay waxaa sugaysaa intay ku keenay markii halkan timaado xogaa computerkayga aad ayuu programkiisu badan xogaa waa daawa sugaynaa intuu kasoo kacayo kadib halkan ayuu ku keenaa inta program hadda ku jirto haddaa xasuusatid programka hadda sida khaldan u tiro wuxuu ahaa midkan Audacity weli wuu yaalaa markaan hadda desktop aan ka tireynay right click delete aan isticmaalnay sidaas wax looma tiro dad baa sidaas isticmaalaan waa khalad hadda waa ku tusinaa computerka recycle bin ima halka uu ku jiro barnaamijka aan tireynay kan recycle bin uu yaalaa recycle bin macnaha wixii la soo tuuro meesha yimaadaan right click restore haddaan dhaho waa ka sida desktopka kaaga muuqato shaashada xaggaas isku soo noqdan marka sidaan wax looma tiro right click delete wax looma tiro software waa kan laakiin sawir iyo markaad tiraysid delete waa dhihi kartaa laakiin software sidaan looma tiro marka ila soco aan u noqono marka halkan markaad tiraysid add or remove program ay imaanaysaa halkan ayaa ka tirada remove baa leedahay remove. Are you sure you want to completely remove Audacity macnaha digniintan waa fiirinaysaa ma ku qalbi furan tahay ama ma ku qanacsan tahay inaad tirtid barnaamijkan uu ku dhahayaa yes ama no marka aniga inaad iska tiraa rabaa yes aan leeyahay kan uu buuxinaa waa ka intan ma aragtid ma yaalo hadda desktopka waa ka tirmay kan uu dhammeynaa kadib recycle bin kuma arkay aan sugno intuu ka dhameynayo kan uu dhamay Audacity beta Unicode was successfully removed from your computer gebi ahaantiis computerkaaga waa laga tira u dhahay waa ku guulaysatay marka okay intan uu ka baxayaa sidaan ayaa loo tiraa marka software computerkaaga aad ka tiraysid hadda kan halkan iyo masaarna si automatically ayuu u baxay qofkii su'aal ka qabo cashirkan comment waa dhaafi karaa ama emailkan description ku qoran wixii su'aal ah ha nala soo xiriiro si waadax ayaa loogu jawaabayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.